degmada Shibis ee gobolka Banaadir waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah waxa isbarbar socda caqabado iyo horumaro laakiin bulshadeedu waxa ay u muuqdaan kuwa xadaari ah ee fahamsan nabadda iyo iskaashiga degmada Shibis waxa ay ku jirtaa tartanka dhinaca ololaha nadaafadda maamulka iyo dadweynaha waxa ay wadajir ku yihiin in laga wada qayb qaato waxa la doonayaa in si xoog badan loo soo celiyo bilicda degmada Shibis ee gobolka Banaadir gaadiidka gura qashinka ayaa goobaha uu ku badan yahay qashinka ka qaadayay meelaha qaar maamulka waxa uu ku eedeynayay dadka deegaanka oo aan xil iska saarin laakiin iyagu ay mudnaan siinayaan ayna kula xisaabtami doonaan ciddii nadaafadda wax u dhinta gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Shibis gobolka Banaadir Maryan Cabdulaahi Hilowle ayaa ka warbixisay howlaha nadaafadda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hadii aan nahay degmada Shibis waxaan sameynay isxilqaan dadkeena dhan ayaa u soo banaan baxay oo degmada Shibis deganaa waxay arkayseen wadada sida loo nadiifiyo waad arkayseen marka waxaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan ku boorinayo 17 degmo ay ka kooban tahay in ay isu xilqaamaan sida degmada Shibis iyo degmada Yaaqshiid ay caaw isku xilqaantay ee ay wadnaha ay u hagaajisay iyadoo ka soo bilowday Sanca aynu ku geysay afarta jirdiina ku geysay insha Allah waxaan sii jecelnahay inaan mataas ka sii wadno oo aan ku sii geyno ilaa meesha ugu dambaysa wadada horumarada waxaa loo tiriyaa dhinaca isu socodka ganacsiga oo noocyo kala duwan leh waxaa arintaasi loo aanaynayaa amniga oo aad u wanaagsan ciidamo gaafuureyga ayayna degmadu leedahay haweenku si weyn ayay ugu dhex muuqdaan ololayaasha dhinaca nadaafadda dad kale ee degmada degan mar walba ayaa lagu guubaabiyaa in ay qaybtooda qaataan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ku guubaabisay bulshada ku nool degmada Shibis in si wada jir ay ugu qayb qaataan ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada waxa bilaabanayo ifafaale iyo horumar badan markii aan imid waa uga mahadcelinayo gudoomiye Safiya oo runtii ay ugu casunta caawa halkan inay iguna yeertay inaan dhiirigeliyo una imaado haweenkan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Shibis iyo Yaaqshiid oo wada shaqeynayay waxa igu yaabadnaa in aan dhalinyarada harqaanka tolanayna intaan la hadalnaa dalka Soomaaliyeed waan leenahay kala dalka wax ka xaq waa diyaar dadku kaliya waxay u baahan yihiin maamulka inay ayagu u tagaan dadka oo dadka ay la hadlaan waxa kale oo aan arkayay PlayStation ayadoo la ciyaarayo albaabada in loo laabay soo damiyeen qof walba aan dhahnay 2 daqiiqo halka uu ka yiri madaxweynuhu qof walba oo muwaadin oo isxilqaan ama 2 saac ama saac dalka u shaqeey waxaan ku liray dhalinyaradii 2 daqiiqana Allah ka dhigay wadadan adigoo mas'uul inaa martaa laga yaabay hooyo kale wax ka xaq way ogolaadeen maamulka sare ee degmada waxa ay qorsheynayaan sidii loogu dhabayn lahaa hirgelinta sumcadda uu xambaarsan yahay qorshaha guud ee dhinacyada amniga horumarka adeegyada bulshada iyo in ay ku guuleystaan tartanka bilic soo celinta degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Shibis ee gobolka Banaadir Safiya Sheekh Cali Jimcaale ayaa kula dardaarantay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Shibis in doorkoodu ay ka qaataan horumarka dhinaca bilic soo celinta degmada Shibis ee gobolka Banaadir qof walbana waxaan dhihi lahaa Ali rasuulka baq hooyo maskiin ah maalin walba hortaada inay nadiifisa xaq ma aha gurigaaga hortiisa naga nadiifi sidoo kale waxaan ka codsanaynaa bulaacadaha guri walba oo Shibis ku yaala waxaan u geynaa warqad oo digniin ah inay hortooda naga nadiifiyaan bulaacadahana biyaha ay joojiyaan caawa wixii ka dambeeyo qofka aan ku aragno ganaaxu muteysan doona haduu Ali yiraahdo shacabka mar walba waxa laga dalbaa in 2 arrimood mar walba ay xoog saaraan amniga iyo iskaashiga ay ku gacan siiyaan horumarka degmadooda tani waxa ay muujinaysaa isbedelada caasimadda guud ahaan Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho